iyadoo xukuumadda Somaliland ee talada dalka haysa ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hogaaminayo horaantii ay xilka la wareegtay ay dagaal xoogan ku qaaday la dagaalanka lacagta qalaad ee laga isticmaalo dalka Somaliland si loo xakameeyo sixir bararka loona isticmaalo lacagta dalka Somaliland isla markaana laga baahiyay warbaahinta kala duwan wacyigelin ku saabsan sidii loogu isticmaali lahaa lacagta Somaliland adeegyada kala duwan ee dalka gudihiisa looga baahan yahay taasoo jirta waxa aan saaka kula kulanay gudaha magaalada Gabiley dad ka caraysan gabadh laga qaadayay cashuurta kala wareejin mulkiyadda bajaaj ay iibsatay oo lacagtii kaashka ahaa ee Somaliland ku diideen howlwadeennada wasaaradda maaliyadda ee cashuuraha bariga magaalada Gabiley isla markaasina ku bixisay lacagta dollarka dadkan oo TV-ga caalamiga ah ee Bulsha TV wareysi siiyay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa lacagta Somaliland inay dalka ka shaqeyso iyo inay naga shaqeyn dawladda noo soo kala sheegto taasoo ah bajaad lagu kala bedelayay lacag cashuura laga qaadayay baa loo diiday laantii la diiday tabeedna waxa la dollar ka soo dhig lacagtaasoo ahayd $80 dib bay inta u sariftay ayay u soo bedeshay dollar taasina waa sharci kuma shaqeynaysa maanu daadina markaa lacagta xaadir banka ha goob joog banka ha marka lacagta kaashka la celiyay ee la yiri dollar ka soo dhig dawladda maaliyadda ay halkan cashuurta laga qaadayay islaam baa bajaaj laga cashuuriyay si wareejintiya islaantaasi waxa laga doonayay $80 $80 ee laga doonayay 800,000 bay soo dhigtay 800,000 dawladii lagama qaadaya lacagtan kaashka looma baahnaa ee dollar ka soo dhig halkan kaashkii cidi kama qaadanayso shay hadaad u baahato dollar ba laga doonaya cashuur haddii laga baahdo dollar ba laga doonay dawladii ba haddaba dollar ku cashuuraysa dollarkii yaa kaash ka qaadanaya dawladii lafteedii sameeysay ee keentay wadanka mas'uulka ka ah ayaa dollar ka soo dhiga leh oo dollar qaadanaysa haddaba yaa kaash ka hadhow loo geynaya yaa qaadanaya wasiirka maaliyadda waxaan leeyahay xil baa ku saaran ummadan baad mas'uul ka tahay dal baad wasaaraddan xil maadaama oo wasiirkii maaliyadda tahay waa inaad ogaato arrimaha wadanka ka jira iyo lacagtu sida u shaqeynaysa lafteeda sidoo kale waxaan wax ka weydiinay gabadhii cashuurta bixinaysay oo iyadu dollar ka soo sariftay magaalada ku bixisay cashuurtii laga doonayay waxaana hadaladeedii kamid ahaa bajaaj ma soo cashuur waxa la yiri 800 la inaad ku cashuuran tahay oo kala wareejinaya 800 baan keenay kaasha waxaan dollar baan ku jiraya joonka ee waxa ku maxaa dhacay sootii Somaliland shaqeynay Somaliland waxay noo keenay cashuurta lacagaha kale dalka kale waxbay naga soo galayso nagii ku shaqeynayteen ma jirtay joonka waxaan ku bixinaa tan cashuuraadkinahay joonka waxaan ku bixinaa dollar soo bedel dadbatayna dollar baan dib dollarkii baa laga qaaday joonka بس كل عدنا ما قرنا يو يا أخي سمعنا كصادان إن دحنا لقى صوب ليه دولة وبشر سداد بقولكم بيهاي $8 كان باليقول لك تجيبوا لنا قوة كاش الدولة sidoo kale mar aanu isku daynay inaan wax ka weydiino maamulaha wasaaradda maaliyadda ee cashuuraha bariga gobolka Gabiley ayaa ka cudur daartay inuu ka jawaabo si kastaba ha ahaatee xaaladan ayaa u baahan in si degdeg ah wax looga qabto si loo isticmaalo shilinka Somaliland ee uu dalku leeyahay waa Cabdisalaam Maxamed Bade Bulsha TV Gabiley